Asalaamu calaykum saaxiibayaal maalin wacan oo wanaagsan waxaan fiirin doonaa suuqa kala iibsiga min Manchester min Chelsea Manchester City Liverpool sidoo kale warar kale ee xiiso leh ayaa idin haya saaxiibayaal intaanan gudagalin subscribe like iyo shareta inagu cimaamada aad iyo aad baad u mahadsantihiin saaxiibayaal kusoo dhawaada mar kale Chelsea way naga yaabinaysaa maadaama ukujuku iyo Chukwuemeka iyo ay haysato ay haddana kusoo daraysaa safkeeda daafacna ay xoojinaysaa Chelsea ayaa hadda wadahadalo miiska wadaxaajoodka iyo wadahadalada ayay la fadhida kooxda Ajax oo ay ka soo qaadanayso daafacan lagu magacaabo Jorel Hato sidoo kale Chelsea waxay u ruqaansanaysaa ama ay war sugan ay tahay in Xavi Simon uu yahay ciyaaryahan oo target ah oo Chelsea ah in ay la soo wareegto xagaagan intuu suuqa xirmin ninka statuskiisa markay fiirsada 48 game uu ciyaaray wuxuu dhaliyay 22 goolal ayuu dhaliyay sidoo kale 11na waa u caabiyay marka waxa weeyaan mucaaradka wadna ay farta ku haystaan maadaama Chelsea ay is xoojinayso bandhigeedana la arkay waxa ay ku dhigtay PSG ay ku dhigtayna waa la arkay marka ayadoo Club World Cup-ka ay qaaday haddana ku imaado ha ka qaadato macnaha meeshan Arsenal ayaa gadgaadaysa maadaama Arsenal is xoojisay oo gadgaadaysa Premier League inay qaado marka Chelsea ayadana is soo xoojisay sidoo kalena Liverpool ayaa iyadana laga cabsi qabaabo in koobka dhan Premier League ay daldalato Arsenal wax la dhahana ee macnaha meesha laga bixiyo marka Chelsea watas wadaxaajood ay la fadhida Ajax Xavi Simon waa u imaanaya sidoo kale Chelsea ayaa digniin ay u dirtay kooxaha qaaday Intercontinental Club World Cup ee qaaday marka Chelsea waxay FIFA u sheegtay in Chelsea ay tahay kooxda kaliya ee qaaday Club World Cup magacaas macna magacii hore waa la bedelay magacan ayay sheegtay marka waxay dhahday sida Manchester City amal bedelay leedahay website-kiina ka bedela Club World Cup kaanayta idinku qoran ma arki karo aniga way dhibaysaa waxa aniga aan qaaday sida Champions League aan qaaday ay leedahay idinkana waxa la mid tahay idinkoo qaaday Europa League amal naga bedel ay leedahay sidoo kale Manchester United ay u dirtay waraaqada sidoo kale waxa u dirtay Real Madrid walo Real Madrid ay wadato 5 Club World Cup Intercontinental ay wadato marka waxay leedahay bedel ama idinka yeelay Arsenal ay waxa la soo wareegtay la soo saxiixatay Victor Gyökeres kadib markii ay ku garaacday Manchester United sidoo kale Arsenal waxa taagid hore u ahaayay Benjamin Sesko sidoo kale Isaac oo hadda Liverpool laawi ah oo Liverpool uu rabo inuu ku biiro marka taageerayaasha xitaa way ku faraxsan yihiin xitaa waxa meesha taageerayaasha Arsenal ay u soo dhaweynayaan sida kalilaab ah sidoo kale ciyaaryahanadana way gareeyeen page-kiisa oo xitaa ninkan Weber rabeenba in uu imaado Victor Gyökeres kaas oo lagu la soo wareegtay dhamaan lacag gaaraysa 73.5 milyan pound ah sidoo kale iyo waxyaabo gunooyin ah marka Arsenal waxa weeyaan way is xoojisay waxaad u maleynaysaa in koobkan ay soo dhigatay oo ay qaadayso ayaad u maleynaysaa waxaad u maleynaysaa in abaarta 20 sano haysata in ay qaado koobkaas Premier League sidoo kalena Champions League in ay qaado ayay rabtaa ee doonaysaa Arsenal soo dhigatay war mucaarado iska ilaaliya Arsenal gambar ayaa loo dhiganayaa marka Victor Gyökeres wuxuu ka hor imaanayaa macalinkiisa hore ee Sporting Lisbon 17 August ay Arsenal iyo Manchester United wada ciyaari doonaan Arsenal ayaa booqan doonta guriga Manchester United ayay booqan doonta halkaas ay Premier League loo fur doona sidoo kale Manchester United ayaa pre-season-ka ama ciyaar saaxiibtinimadeed ay wada ciyaari doonaan iyo Bournemouth iyo West Ham iyo
halkaas oo xitaa Brian Mbeumo iyo Matteo Cunha iyo kuwa kaleba ay u safreenba ay joogaan USA Chicago. Marka waxaa xitaa Onana la arkaya inuu ka qayb gal, laakiin dhaawac inkaas uu yahay. Sidoo kale waxaa laga tagay oo safarka saaxiibtinimada ah gaarin ama laga tagay guriga xaafadda socdal dhawaryada anagana nolama ciyaaraysiine Alexander Garnacho, sidoo kale Jadon Sancho, Wallo Rashford uu ku biira ama ahaan iyo gadasho dooq ah Barcelona. Marka labadaanay waxaa la dhahay idinka faraq baa tihiin canugan yarka Ronaldo iska dhigay camal waxa la waryahay gurigaaga aada. Sidoo kale waxaa tababarka ama Liverpool lagu arkaa Hugo Ekitike oo xiran fanaanadihii qadiimi ahaayeen 1997kii ee kuwada ciyaar jireen maxaa la dhihi jiray sida kooxaha oo macnaha maaliyadihii horey oo qadiimi ah soo xiran ayaa safar laga soo qaaday Hugo Ekitike midaas oo watay Gerrard 28 nambarkii hore oo 1997 uu ku ciyaaray. Marka Liverpool qarash ay gelisay suuqa, xitaa waxaa u yaala rikoorka ay dhigtay in macnaha la soo wareegtay Frimpong, la soo wareegtay Kerkez, la soo wareegtay Mamar Davish, la soo wareegtay sida Wiza, la soo wareegtay sidoo kale Ekitike ay la soo wareegtay. Marka xitaa waxa u dhiman hal weeraryahan oo xitaa oo cadeeyay in uu rabo ku biirida Liverpool uu rabo. Marka Liverpool iyadana lacagteeda xitaa oo lagula soo wareegi lahaaye ninka lagu magacaabo Alexander Isak ay u taashaa bangiga ay u taashaa ninkaneeto lacag ayaa loo jebiyey. Goor hore ayaaba la sii ogaay ninkan inuu rabo Liverpool ku biiridiisa, inkastoo hadda kooxda laga saaray oo macnaha Eddie Howe oo loo sheegay macnaha in uu Alexander Isak uu macnaha uu tababarka u joogin, uu rabo in mushaaraadkiisa loo badiyo. Ninka wuxuu rabaa Liverpool ayuu rabaa inuu aado, balse Newcastle United ayaa ku cadaadinaysa macnaha, laakiin waa la siin karaa oo macnaha kooxdaas waxaa leh nin bilyaneer ah oo Mohammed bin Salman la dhahay baa leh. Marka kooxda ayuu ku cadaadinaya in ay gadaan oo macnaha Liverpool ay siiyaan ayuu uu doonaya, inkastoo tababarka uu la qaadanin oo macnaha la fasaxay. Ninka waxaa leeyahay buuq baa ku furan baa leeyahay. Sidoo kale waxaa la xaqiijiyay in Mbappe la siiyay nambarka 10aad. safarka nambarka 10aad caadi maahan. Lamine Yamal oo nambarkii Messi la siiyay 10aad, sidoo kale Mbappe oo la siiyay nambarkii 10aad ee Luka Modric oo iskaga tagay kooxda. Sidoo kale nambarada kacsan waxaa kamid ah Palma, Mohamed Salah ayaa kamid ah. Sidoo kale nambarka 10aad ee Manchester United ee Matteo Cunha. Marka safarka nambarada aanita waxay waayeen nambar aan caadi ahayn waay oo loo gali karin oo shaxdooda inaba caadi ahayn, bandhig fiican ay soo bandhigi karaan nambaradaas. Manchester City ayaa rabtaa in ay la soo seexato weeraryahan kale, inkasta oo Marinikas oo ka tirsan Nottingham Forest ay rabto inay iska iibiso, laakiin Tottenham ayaa rabtaa ninkan inay qaadato, maadaama Tottenham iyo Nottingham Forest xogo yar mucaarad isku yihiin. Waxay rabtaa Nottingham Forest in Manchester City ay soo gasho oo ciyaaryahankan uu Manchester City u aado bedelka ay siin lahaayeen Tottenham ay siin lahaayeen. Waxay rabaan marka in ay siiyaan Manchester City, walow ninkaneeto ciyaaryahankan uu rabo qudhiisa in uu macnaha ka hoos ciyaaro ama macalin uu u noqdo Pep Guardiola. Pep Guardiola wuxuu dhahay aniga waa macalin fiican waa u dhahay, waxaan rabaa inaan Pep Guardiola waa macalin wanaagsan oo dhahay, waxaan rabaa inaan macalinkay uu ii noqdo oo aan u ciyaaro kooxda Manchester City. ayuu saaxiibayaal subscribe, like iyo share inagu cumada.